cajaladan waxaan rabaa inaan si gaara ugula hadlo gabdhaha. runtii hooyaan ahay, gabar dhashay, gabarna korsatay, inamana dhashay. aad bay ii dhibaysaa fadeexaynta gabdhaha iyo ma aragtay waxyaabaha gabood fallada ah, kufsiga faraha badan leh oo meel walba ka dhacaya. waxaan rabaa wixii bal aan ka dhihi karo, hal qof baan ahay, wax badanba ma samayn karo isbedel badan, laakiin wixii aan ka dhihi karo inaan ka dhaho. horta aad iyo aad baa u mahadsantihiin inaad aniga oo aanan maaragtay hore idinkugu sii sheegin aad durba 100 qofood ka badan adigu daawanaysaan. horta waxaan rabaa inaan idin sheego adduunyada ilaa waa maalmo kooban waaye, waxa dhan aan u joognaana wayna lagu tijaabinayaa. bini aadanana waan qaldamaynaa, marmar afkeena waxaa ka imaanaya waxyaabo cajiib ah oo aan loogu talagelin, marmarna waanu toosannahay, waanu hagaagsannahay. hase yeeshee waxaan rabaa horta inaan wax yar sharxo. waxaa jira arrimo fara badan baa meesha isku murugsan. akhlaaq darro shacab waa jirtaa, isbedel shacabna waa u baahannahay oo bulsho ahaan inaan anagu siyaasiyiin ma nihin, shaqo kuma lihin, gobolada iyo wax naloo kala saaro markay danta runta ah ay timaado. saas laajligeed waxaynu dad isku wada dan ah, isku wada diir ah, isku wada dun ah, isku wada dux ah. maadaama aan sidaas nahay oona dhaqanadeena iyo waxaynu aanay kala dheerayn, waxyaabaha qaarkood ee qaladaadka ee faraha badan le markay dhacaan waa inaanu iskala hadalno oon wax un iska niraahno. horta waxaan aada uga xumahay gabadhii la faafiyey. anigu sheer ma soo dhihin waxeeda, sababta waxay tahay wax kasta lama sheer gareeyo. wax markaad aad dadka la sii wadaagto, aad dadka la sii tusiso oo hor leh, wax xal ama aadan samaynine wixii unbaad sii faafisay. marka laakiin inaan ka hadla xaq baa u leeyahay, waa gabadheydii oo kaleeta ah. horta taa aad baan uga xumaaday, laakiin gabdhaha waxaan rabaa marka hore intaan arrimaha kale u gelin, waxyaaba badan aan rabaa inaan idin kala hadlo, laakiin waxaan rabaa gabdhaha inaan idin sheego sawir ii soo dirta iyo kamera ii furta. anagu ma doonayno inaan hormuud u noqono anagoo gabdho waaweyna oo dadkii lagu dayanaya ah. dagaal ragga ka dhan ah, ragga dagaal kule ma jirno, anaga ragga dagaal kule ma jirno. maxaa yeelay dadku in xun iyo in fiicanba waa iskula jiraan. maaha inaan raggoo dhan xun haddaan dhahno macla aabbayaasheena soo galaya. aabbaheena ma xumayn, aabbahaa ma xumayn, aabbaheed ma xumayn, aabbayaasheena ma xumayn. saas laajligeed inaan waxa generalization ku samayno oo aan dusha ka wada qabanaa waa laga wanaagsan yahay. ma wanaagsana sidaasi, taa waa inaan ka waantoonno. hase yeeshee gabar yahay waxaad ogaataa marka nin ku dhaho ii soo dir sawir, horta waxaad ka dhalatay bulsho adigu aad ceebta u nugushahay, laakiin ninka ragga ah aanu ceeb u qaban. taasina waa xadkii bulshada ku heshiisay. wixii bulshada ku heshiisay adigu kale waxba kama bedeli karaysid. maxaad marka bedeli kartaa? waxaad bedeli kartaa adigu inaad is asturto oo adigu maaragtay ada sawirkaaga nin islaameed u dirin. taa waa kow. idinka iska daaya annaga oo gabdho waaweyna oo ayeeyooyin maanta marayna, intaan hooyooyinkii ka gudubnay ayaa maalin walbaba na lagu yiraahdaa sawir ii soo dir. example anoo kale 200,000 oo sawir ayaa ku jira google-ka oo aniga leeh. qofku magaceega hadduu qoro wuxuu helayaa intaasoo 100 oo sawir. wuxuu helayaa kala duwan oo weliba xataa xaaladihii nolosha oon markaa mar walbaba sawirkaa markii laga qaadaya aan ku jiray sawirro muujinayo qofku helaya. mar waa madoobaha, mar qamaan isku ah, mar waa qosla, mar waa farxa. 100 sawir uu heli karaa qofku. haddana annagaasaa maalin walbana lagu yiraahdaa sawirra noo soo dir. waa inaad marka ka fiirsataa gabar yar markaad tahay. shalay aniga markaan teenage-ka ahaa sawir nin ii soo dir idhahaya ma jirin. hooyadayna waana dhinacaas ogama baahnayn, waanooyin kalaan uga baahnaa. sababtu waxay tahay maba jirinba sawir ii soo diriyo waxan ii soo dirtaaba maba jirinba. sawirada qaarna black and white bay ahaayeen markaan yaraa. ruushka meelahaasaa la geyn jiray, markaasaa kalar la soo marmarin jiray. ilaa barnaamij caadiya ma runta iska sheegaynaayo waan iska kaftamaynaa. qaarna waxa waaye haddii la isa sawirana footaa la tegi jiray oo la isa sawiri jiray.
markaa sawir ii soo dir maba jirinba ninkaad sawir siinayso gacantaad ku siinaysa idinka generationkiina waad naga duwan tihiin waxaa haysataan kaamerooyin casri ah iyo dhammaan wixii miidiya ahaa ama warbaahin ahaa gacantaaday ku jiraan ninkan gacantiisay ku jiraan dadku isku aqli maaha isku garaad ma aha gabadhan aday ku aamintay astur iyo waxaas ma gartaan tii laakiin arrimahan intay socdeen iigu cajiibka badnaa waxay ahayd gabar magaalada muqdisho joogto ayaa hadda ka hor ila soo xiriirtay caawinaad iyo talooyin dhinaca waxaagay i weydiisanaysa nolosha gabadhaas mar walba qalbigayga waa ku soo dhacdaa siiba markii gabadhii hadda sawiradeeda gabadhii yarayd ee quruxda badnayd hadda sawiradeeda la faafinaya aad bay gabadhaasi calooshayda igu soo dhacdaa dib baa u raadiyey xalay whatsappkayga ka raadiyey aad uma soo helin waan ku guuldaraystay horta gabadhii hadday maqlayso ay nooshaa inay ila soo hadashaan jecelahay gabadhaasi suicidal bay ahayd waxay rabtay inay nafta iska qaado arrin baa idin sheegaya yay nafta iskaga qaadaysaa marka waay ay nafta iskaga qaadaysaa gabadhaas yar xamaray ku nooleed markii ugu dambaysa waana muddo hadda koobo 3 bilood ma dhammaynta ka soo wareegtay nin ayada qaba oo ay hal gabar u dhashay miyay igu tiri mise hal wiil adigu hal canug oo hayso ayaa iyadoo jiifta oo gogasheedu huruda intuu maryihii gogashii wixii ay hugsaneed ka qaaday oo ka fiiqay buu sawirra ka qaaday sawiradiina naaga kale uu shukaansanayo u diray naagihiina waa qaadeen oo adduun oo dhan bay wareejiyeen hadda waa nin qaba kama hadlayno nin la sheekaysta kama hadlayno waa nin qabaa qaawiyey oo sawiray gabadhaas anees in person ila hadashay maalinta waxaan kala talin karaan kala taliyey dib baan u ballanay maalin kale haddana ismaqalnay laakiin maalin saddexaad imaan soo noqon aad baana gabadha uga walwalsanaa tusaale aan soo qaatay idinku marka waxaad ka hadlaysaan nin halkan kaaga soo baxay fudkaaga soo yiri sidii faranfar oo ku yiri waa ku jecelahay waa iga dhex baxday waa iga yeeshay nimanka hadalkooda waa garanaynaa oo sawir ii soo dirkiro ood u dirto qalad yar iyo weynba waa la galaa qof ceebka saliimay meesha ma jiro laakiin qaladka marka aad yaqiinsato inuu qalad ahaa waxani waa inaad dib dambe ugu laaban ood ka waantowdo waxa ku hor yaallaa ee hortaada ka muuqdaana waa inaad ka waantowdo ayadana haddii marka ninka ku qaba ay ka suurtagelayso inuu inta ku qaawiyo ay possible tahay dee nimankii oo dhan baa wax qaawinaa kama wadno laakiin nin gabar qaba ilaan way dhacdo waanu aragnee nin gabarkii uu qabay qaawiyey ee sawire ayaanu haynaaya haddii taasi ay suurtagal tahay maxaad u malaynaysaa ama aad ka filaysaa ninaan waxba kuugu darayn oo ajnabi ay kala tihin horta taa waa inaad xisaabta ku darsataan gabdhihiina yaryarka ah fudaydka iska dhaaftaan ta labaad waxaa idiin sheegayaa ma qofkii u socday cantoobo yaroo xilli yaroo kooban iyo macaasi iyo wax noocaas mase u socday guriya mustaqbal qofka guriya mustaqbal hadduu u socdo maba ku qasbaaya wax ii soo dirna kuma dhahaayo haddaad diri weydana gafurka kuu tuuri maayo barnaamijaa jira aan maalin dhaweeta sameeyey oo aan ku sharxaayay maya iyo awooddeeda barnaamijkaas gabdhihiinna wixii awooda inaad daabataan baa jeclaan lahaa wuxuu kuu sharxayaa maya inaad tiraahdo awoodda ay gacantaada gelinayso dee maxaa maya leedahay wax alla iyo waxaan ku anfacayno dhan baad maya leedahay ya oraad gabardha yaryaraa tihin wakhti idan cayrsanaya ma jiro ubax soo baxayaa tihin quruxdii waddankaa tihin mustaqbalkii dalkaa tihin dadkan wada barbaxay ee wada barakacay ee qofba meel ku dayacan ayaa idan eeganaya berri midkiinaba meeluu ka soo baxaya ma garanayno mar unbuu noqon doonaa si unbuu noqon doonaa waxa laga yaabaa waddankaana madax ka noqotaan waxa laga yaabaa macallimiinta adduunka ugu sarreysa oo soomaalida wuxuu dhigaya inaad noqotaan gabdho idinka adin la hadlaaya nin lama hadlaayo raggaan haddii lala hadlay haddaan lala hadlayn waa isku mid waxayna haystaan dhaqan isgarab taagay hadday qaldan yihiin inay sax yihiin hadday saxan yihiin inay sax yihiin idinka dhaqankaas isgarab taaga ma haysataan waa inaa ogaataan farqiga kala duwanaanshaha adiga iyo walaalkaaga kula dhashay oo guriga kaala yimid
وإنا يقين ستان وحي رن إنديه نكهر موقضة عندنا كو إيدي ميسان وإحنا كبدلي مكرنو إذا كسكداي أنك هو يوين كابحيو كبدلي كرينين دقا كنوع عاسا لكن وإنا أكتهين بسيشن كيني إيميلها أتاغنتي وإنا أكتهين هدي عيبتا إنا إذن قبتا إذن أفدودين وإنا تطل من تعيب أودن كديراتان وتسكدايسان عيب أودن أوكي طلن يردو واشوكان ستا واها ساوان واسجعلادان لكن حاذين شيغايا جعيلك قديسة هير بوليه naftaada wax badan bay ku sheegaysaa aan dan u wada ahayn ninkaana rabtaa hebel waa qurxinya hebel waa isku dhacsan yahay hebel kan uu yahay hebel kan oo ka dhacay hebel waa balaaya ka dhacda hebel reer xaagan hebel wasiir hebel aa dhalay hebel maxay toonay waxa dhashan naagtii balaayada ka dhacday oo caanka ahayd hebel kana ahayd aniga ha andala hadaan doono ina muso weeliya dhasho canuga haday doonto ha aaminina sawirna ha u dirina waa ugu diraysaa sawir ما بإذنكم ما وحجر وحلا سكول ليه هي وحلا سكول هين اسكملي هدين أنا سوير درتان وحدا سكول ليه دهين أنا شاكي ستان بس that's it وادا مات سوشيال ميديا وحياب بدن الصورة الجلية وحياب بدن أي الصورة الجلية وحو الصورة الجلية دتكي إن إصلح قادان جان ترغن إن نقطة هذه شمبروه أي شمبر كذا لا دوليسay hadda waa la isku dhex qasmay social media wuxuu suurta galiyay shimbirkaaga ahayn inuu ku soo raadsado adiguna midkaaga ahayn inaad la duusho wuxuu suurta galiyay qof xanuunsanaya oo Allah ya rasuul u baahan oo in quraan reerkiisu saartaan u baahan oo in dhakhtar la raadiyo u baahan oo psychological problems qaba oo asaga dhanba in wax laga qabto howl laga qabto u baahan inuu hoosta ku soo galiyo oo saaxiibka la dhigo social media ayaa baraha bulshada ayaa suurta galiya telefoonadana kaan haddan idin kala hadlaayo oo sirteeda la dul saarana hatta kursi ma fadhiyo sirteeda la dul saarana ayaa suurta galiya wax badan oo hore suurta gal u ahayn suurta gal ah Soomaaliya waxa jira afka waxa naga qabsa Soomaalida hore dad fiican ay ahaaya dad fiican ma ahayn Soomaalidu weligood dhaqankoodu noocaan u ahaa wuxuu ahaa dhaqan ceebta ay qaban ogtahay qofka dumarka ah wuxuu ahaa dhaqan isgarab taaga dambiilaha weligood saanay ahaayeen idagaysta waanu soo noolayn annaga naga sii hordad baan noolaa laakiin maxay ka farqigu maxuu yahay shalay waxaa jiray xilliyadii annagu aan gabdhaha yaryar ahayn waxaa jiray rag lagu sheekaysto xaafadaha oo la yiraahdo ninkaas maqaayadu xaaskiisa kaga sheekeeya maradiisa iyo gogashiisa buu maqaayadaha kaga sheekeeya waa jireen hadda kuwii dhaleen waaya kuwa hadda sawirada intaad u dirtaan idinku ceebaynaya sawirada aad u dirteen Soomaali hore fiicneed iyo mid dambe xil ma jirto Soomaalidu isku wada mid dhaqanka sidii u soo wada guuraan xabad kama bedelin diintii waxba kama bedelin just cimaamada iyo qamiisyo iyo xijaabkan aan hadda xiranahay isla loo xirtaan baranee wax aan ka bedelna male ilaahay mana leeyahay oo runta ma tahay inaan soo sheegnaa mise beenaan isku camirnaa ninkii raggii shalay waxa jira rag la magac ah ya oo xaasaskooda hablo markii aan sariirta tagno sidan ay dhahdaa way reentaa kanay samaysaa waa cabaada nimankii saas ahaa akhlaaq darada ilaa heerkaas qabay kuwoodii le oo dhaleen oo yaryar le waa kuwa hadda sawirada idinka qaadaya idinka oo videoyada idinka duubaya nothing changed just waxa isbedela kuwaas ma haysanin social media iyo ma aanan haysanin telefoonka casriga oo hadda idinka haysatiin ما هيسن إلهي بارتو نقول جعل كل ير لي هذا جوجو سنجودي لا وايا وحمتودي وايا وأبور كودي واي مركي هرنا ما هن إلا آمن حدا ما هن إلا آمن وحان أجها أن حسست حافظها كده حد يجري حاس كسي أنت أجشك يا ركله loo dhigay gar loo dhigay oo gobol loo fariistay gabadha reerkeedii soo fariisteen asaga reerkiisii soo fariistay oo naagtada xad ugu faaqida maqaayad hablow la yar
maxaad maqaayada hebla dhexdeeda naagtaada ugu faaqidays marka laba arrin aan kala saarno anu rag difaaci maayo oo wax la difaacaba waa ka farabateen laakiin inaanan u cindaqaadinoonan madaxa ka wada qaban oo aanan dhihin way wada xun yihiin oo way wada sidan oo way wada duubayaan wada duubi maayaan laakiin adiga mugga horeba wax lagaa duubaba ha ka dhiginba available haba isku diyaarin in wax lagaa duuba maxayba aso ha xumaada ninkan ama ha fiicnaada waxuu duuba ha waayaba okay waxaaga haddaa haysato jirkaaga ile adaa leh adaa asturan markuu ninku ku dhaho isku kay soo qaawi ee ii soo duub ninkaasi guurkaa ma rabo haddii aad u haysato inuu guurkaa rabo guur makaa rabo waa beenti guur makaa rabo guurka kaa raba korkaaga oo ku asturnaado uu ku faraxsanaanaya inuu sugu ku faraxsanaanaya mana dhararayo karkabana kuma jirto ilaa naar iyo maaragtay aynimo ula cararayaa ninkaasi ma qaba waa inaa intaas garataan gabdhow hooyo ahaan ayaan idinla hadlayaa idinlama hadlayo maanta wariye ahaan idinlama hadlayo psychologist ahaan idinlama hadlayo maxay tan counselor ahaan waxaasoo dhan idinlama hadlayo waxaa idinla hadlaya hooyo ahaan maadaama hooyo ahaan idinla hadlayo si ninkii wanaagsanaana aan loo ajaafaynin ila raggii ma wada xumee kii xumaana aan fursad loo siinin oo ceelka uu rabo inuu ka biyo cabo aan biyaha oonan uga dhaansan waa in aad idinku garataan inaad marka horeba aan sawir laydinka qaadeen sawir maa rabtaa haa sugo anigiyoo dhanaaba soo socdee soo is aroosi mayno haa dee walaalow aan isu sugno hadde anigiyoo dhanoo mudh ah baaba ku dhinac seexan doona halkaasuu shir ku xiranya ee arrimaheenii kala nooga hadal adduunka wax laga sheekaystaaba badan ninku ku dhaha waa ku aroosa yaa seenu isu aroosnaa reerkeenna meega doonanaysaa meeqaad iga bixinaysaa meherka meeqaad awoodda howl kalood ku mashquulisaan ragga aaba jiree maxaa cawradiina loo duubayaaba idinkuna aad u bixinaysaan fursaddaas ninkaasi waxaaba laga rabaaba 2,000 oo su'aalood maa weydiisid ninka 2,000 oo su'aalood asoo xiiqsan ha kaa tago habeenkaa seexdo alla yaa nafte oo baxsada ya asoo baxsada oo xiiqsan ha kaa tage maa runta u sheegtiin ya waxay ogaanaysaan hadda dowlad waa qabnaa of course waa qabnaa qaladaad badanaa iska jira weli macnaha dowladnimadeena maynan istaagin sal ma nihin sharci ma leh waddanka gudihiisana sharci ma leh dibadiisana sharci ma leh annagiina ma nihin dad u bartay inuu sharcigu difaaco shuruucda inay ilaaliso marka xataa adoo yurub ku nool baa mid kaloo yurub ku nool video kaa duuba asad adigana dacweey meesha shibaadka leeda sababtu waxay tahay maba aada u barinba ninka inaa sharciga marsiiso uma baranba uma baran sharci ku barotogta garay uma baran abootadaa sharci ma soo barotogta garay habartaa sharci soo ilaaliya ma soo helin oo wadankay ka timid iyadoo qaxa oo cagla habaaba adiga meelahaana imaata adiga markaa meelahaan imaata adigana sharci oo ku ilaaliya oo ku difaaca adoo haysta oo UK oo kala degan Sweden oo kala degan oo kala degan Finland oo kala degan oo sharci leh baadan haddana sharcigii aaminsanayno kumaba qanacsanido wax sharci soo difaacaba reerkiina kama mid ah asaa video lagaa duuba markaasaa meel walba la marina one report oo booliiska u bixisa kugu filan revenge born ala dhahaa revenge born a sharcigaas la dhahaa dadka ingiriiska ila jooga barta revenge boonkii oo macsida ahaa aarsiga macsida a la dhahaa macsidii aarsiga ayaa la yidhaha marka video lagaa duubo ama sawir lagaa qaado oo babliga lagaa dhigo xataa haddaad qalad gasho anu maba raba inaad qalad gashaane ooyba dhacdo oo shaydaan kaa saa'id caleeyo ooba wixii lagaa duubo ood aragtay in babliga lagaa dhigo hooyadii buu ka caanamaalayaa waa in aad sharciga marsiiso itis revenge bona la dhahaa magaciisa xataa idiin sheegaya UK haddaa joogto laakiin ani Scandinavia iyo ma aqaano kolley magacuu u leeyahay ilaa iyo America waa illegal waxaa lagaa duubay lama soo dhigi karo public laba dambe la isugu kaa dari maayo
weli ilaahay toobadiisu waa kuu furan tahay ninaa isu qaawayso inaad ka soo laabato salaadaada tukato ilaahay oo cafi mar dambe uma noqonayo aad tara but that is a law waa sharci adoo marka meel sharci la jooga turki xataa haddaa joogto waa inaa sharciga marsiiso waa inaa barataan soomaaliya isla nahay saan u lahayd war ilmihiya kufsi lagu dhameeyey waxaas ma jiraan criminal is a criminal dambiile qofka markaa noqdo waa dambiile ma garaynayso protection ma ku siin kartid for Soomaali waaye daraadis ma ku siin kartid ta kale oo raba inaan ka hadlo waxa waaye waalidiinta ilmaha waalidiinta dhalay kuwa Soomaaliya sidaas waalidkeena ilaashan jiray ilaashta ilmaheena ninaha ku aaminina kuwa jooga wadamadaana ka daaya ilmaha aad baraysaan nin walba ee hulaaban ee Soomaaliya aad leedahay waa adeer iyo waa abti ka dhaafa taasi waxay sahashay in caruurtiinu ay baylaha noqdaan cidlaaninka uu ka kufsado asoo Soomaaliya because adaa u sheegay canugu waa innocent waxba ma garta canugaan dambe ma garin adaa waxa u sheegtay inuu ninkaani abti iyo adeer yahay ninkaani inuu family yahay adaa u sheegay iska daanimo Soomaaliyeed kuwa kale ee islaamka ah ee kala ah ayaad ku maxay ahaato adeer no abti ma jiraan meeshaan abti run ahaa jiro adeerna adeer run ahaa jiro kuwaasina sida lagu isku arka aaba aqaana aniga ilmana waa ku korsada laakiin nimankan Soomaaliyeed ee nin walbaaba aad caruurta u baraysaan markay yaryar yihiin abti hebelaaw adeer hebelaaw aan waxba u ahayn ka dhaafa taasi waxay sahashay canugii haddii si kasta la yeelo waxaad gudbo sexual assault lagu sameeyo inaanu canuga kuu sheegin because abti iyo adeer shaqadii ay ka qabahayeen asaga inay tahay u haystaa canuga yarka ee miskiinka ee innocent-ga waalidiinta taas waxa kuu soo haray gabdhaha meel kasta ku ooyaya haddii gabar Soomaaliyeed ay soo ooyday ooyintii ugu badnayd horta anaa soo qofka bini'aadamka waxa wanaagsan markuu sheekaynayo inuu xaqiiqda ku sheekayo waana sheekayo anay idinka waa isbaranay sanadka hore isbaranay wixii markaas ka horreey aaminada xagga ka hadasha aaminada xagga taagan aaminada codka waxda idin ah laakiin waa isbaranay hadda haddii qof bini'aadana oo gabar Soomaaliyeed ay ooyday ooyintii ugu badneed horta anaa ooyay amar idin sheegay maantana ma ooyo haayo gabdhaha marka hadda ooyaya waxaan rabaa inaan idin sheego xaalka kala goosgoosta inta aad dhiban tihiin hadal badan ha hadlina ma xamili kartaan qaniyadu markay kugu dhagan tahay oo xanuunku uu ku haayo hadal fara badan ma geli kartid haddaad gashidna emotional noqonaysaa depressed tahay waa isku dhex daadsan tahay wax walba ka suuragala ooyintaada luuqa ku ooy tartiib soo ooy laakiin markaad ilmaha soo korsato ood soo dhammaysato hawshaada yaa hawsha soo kala goosta hooyooyinka hadda ay possible ka tahay inay dhibaatada ku jiraan la haya hawsha soo kala goosta marka ay xanuunka kugu dhagan yahay ilmahaaga yaryar yihiin aad baanbara bedelayso la barafka la qubcuq leedahay dhexdiisa wax kuu gargaaraa aanay jiran kii kaa dhalay kugu jeesjeesayo kugu dayacay waxba kugu siinaynin Soomaalidii kalena dee barnaamijka hortiisaan kusoo bilaabay hadalka lifekan hortiisa haddaad ila joogtay ba ay adiga le wax saarkaaga u fududahay oo cid kuu gargaaraysa iyo cid wax ku dhehaysa iyo cid adiga maxay ahaytoonay gacal kuu jirin hadalka ha iska badinin hadalka ha iska badinin calooshaa ku maran dhabarkaad ka jaban tahay xilligaas waa dhibaataysanta calooshaada ma garat oo dadkana soo wacayo naga daaya wixii baad naga goynaysaan
calooshaada yaa banaanka taal marka iska daaya waxaas iska dhaafa markaa laaka ilmaha soo korsato soo qurux badnaato soomaali foolxun ma jiro meeshaan dhibka lee dadka foolxumo ka dhigo yaa shaxshaxley ku soo noqotid ilmihii soo korsatay ama certain age soo gaarsiisay ilmo aad baambar u xiraysay ama baambarka furayso aanay ahayn ilaahay uu garabkaaga galay adkaysi ku soo gudubtay ha ooyinku ma dhowhaayo waa ooye ma ahane waxaad u ooye maxaa kaa gala u ooye waa soo ooye jiifan ku ooye joogan ku ooye anoo shaqayhayaan ooye anoo war akhraayo news akhrinayo oo BBC in war layga sugaayo ana ooye aniga ooyena isoo dhaafta xilliyaanan ooyin male meesha faan ma jiro barnaamijkaas kasoo gabagabaynaa 800 aad daawanayso laakiin ma aqaan saan yeela ma aqaan wixii gogo-oohaya waxaa samaynaysiin iska aamuso xilligaas ha ooyina social media ha soo gelina marka aad dhiban tahay oo aad jilcan tahay oo dhabarka ka jaban tahay oo caruurta ka hoos ooyeyso dadkuna ku garowsan maayaan kii ku dayacay oo ilmaha kugu dayacana joos iyo qosol ka qaada jariidka ka qoslaya ma ahayn inuu cadow kuu noqdo xabiib buu ku ahaa oo caruurtaada aabaheed buu laakiin doqonnimadiisa haddii ay siisay in uu adiga uu caruurta kugu dayaco kuguna waxnana kugu siinin ooyintaada waxba ka bedeli mayso xaasidnimadiisa marka xilligaas ha ooyin adkayso ilmahaaga korso adigana wax isbar waxa aad kala ballamaya waxa waa in adiga meesha iska qaad adiga ina wax isbarto qaasatan gabdhaha qurbaha jooga oo Yurub iyo Ameerika ku nool waxa haysataan fursad aad ciil walba kaga baxdaan ogow waxa laga rabo waa qalbigii aad noloshaada wax kaga bedeli lahayd inaad la timaadid go'aan adag iyo determination inaad gaartid labadaas hadaa isku hesho ooyin ma u baahnad doonid ina ooyin ma cinsato ooyinta tartiib ay kaaga soo hadleen sida aaminoo kale ka sheekayhay taariikhdaada adoon hal ilin indhaha ku soo istaagan adaa isgaarsiin kara horumarka gabar yahay adaa horumarka iska wadan ahaanaan burburnay saas la ajliga shacab ahaanaan burburnay ciyaar ma aha wax ciyaar looga soo kabta ma aha wadan burburay dadku waxay moodaan siyaasad kaliya inay tahay siyaasad kaliya ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku dhaartay inaan siyaasad kaliya ahayn wax naga burburay dad ahaanaan burburnay bulsho ahaanaan burburnay qalbi ahaanaan burburnay qabkii ayaa naga jabay intaas markay dhacday qoys burburkuna waa imaaday waa inaa aqbashaa wixii alla uu kuu xukmay waa inaa aqbashaa sidaan geerida u aqbalno waa inaa u aqbashaa haddii qoysku kaa burbura laakiin maxaa la rabaa qofka aniga idinla hadlaayo theory idin kalama hadlaayo wax aan buugaa ka soo aqriya maaha this is happened to me waa wax aniga igu dhacay ayaa idinkala hadlaayo inta aan idiin sheegay oo waraysyadii hore ee sanadkii hore baxa ku sheegana ciddada foodeeda ma dhame ilaahay subxaana wa tacaala baan ku dhaartay inaan ciddada foodeeda dhamayn ooyin gabar Soomaaliyeed hadday ooysana anaa ugu badnaa ooyinta ugu badnaadaan ooya hadda ma ooyo haayo waxaa ogaataa waxaa lagaa rabaa inaad adkaysato ilmahaaga korsato nolosha waxay leedahay muhiimad priority ay nolosha leedahay prioritieskas nolosha ay leedahay inaad u kala qaybsato maxaa priority ah inaad noolaato maxaa kaloo priority ah inaadan diintaada ka bixin ilaahay diin la'aanna ma dhigo waa xanaaqa markaan xanaaqana ilaahayna waa ku xanaaqaya uumay ka bacdana diintaan ka baxa waxaas afma diintaada haysato dhaqankaaga haysato akhlaaqdaada haysato asluubtaada haysato ilmahaaga dhexda u xirato korsato haddaad ooyeysano luuqa ku ooydo social media aadan ku soo ooyin ilaa ilmahiyaa weli yaryare ooyintana celima kartida adkayso maalinta dhabarku kuu kabmo maalinta labadaada lugood kuu adkaadaan maalinta aad tabar yeelato maalinta aad ciilka ka baxdo maalinta kuwii yaryaraa ee baambarada cafaayadaha loo wada xiraayo ee lagugu ciilaayo oo korkaaga taagan aa aragto
maalinta ay iskuullada ka soo wada baxaan maalinta jaamacadaha ay ku soo wada dhameeyaan maalinta aad adigana markaas intaad alxamdulilah ay tiraaho hooyo ilmo korsanayso dhiboon anaa aqaane 10 jeer habeenka soo kacdaaya aadan habeenka soo kacayno saas dhinaca markaad dhulka u dhigto aad iska hurdayso ilaa iyo xilligayada salaada iyo xillida aad kici lahayd maalinta aad hurdo ka dharagto quruxdaada iyo wajigaaga iyo dheemankaaga oo kuu soo noqdo ya gabigeena yaraanaan wax ku dhalnaa badanaa gabdhaha Soomaaliyeed dhaqan ay naga tahay annagoo yareeraan wax dhalnaa soo dad ilmihii markay koraan we are still beautiful wali waa qurxoonna ruta isku sheegna ya wali waa qurxoonna wali naag yaraato loo haweenayo maalintaas hadda hadlayso markaa hadlaysidna aarsi u hadli maysid duulaan u hadli maysid xaasidnimo u hadli maysid ilmahaaga ina adoogood ku dirto u hadli maysid laakiin waxaad u hadlaysaa in waayo aragnimadaada laga faa'iideysto oo gabar kale walaashaya oo yar oo wixii aad ka soo baxday hadda ku jirta ay wax kaa dheefto u hadlaysaa waxaa tahay qaamuus hadlaaya tahay qaamuus hadlaaya ayaad u noqonaysaa bulshada laakiin inaad bulshada kiciso been u sheegto maxay ahayd toonay aad xagga ku hogaamisa ma aha ya hadda laakiin adoo dhiban haddaad hadasho ma Soomaaliya ku garaabe dhaqankeenuba dhaqan oo dumarka loo garaaba kamaba suubsanee abootadaa looma soo garaabin macooydaada looma soo garaabin hooyadaa looma soo garaabin adiga ma lagu garaaba macquul ma ah isku filnaada 112 opportunities jiro gabadhan Leila Xirsi oo hadda waa runta maasha Allah meesha ku soo qorayso waxay kamid tahay dadka shaqaystay kamid tahay oo opportunities ka ganacsiga yar ka shaqeeya boqolaal wax oo laga faa'iideysan karo barnaamijyo kale idin kugu sheegi doona hadaa rabtaa xitaa waa leedin tababaraa leedin siinaa for free koorsooyin jiro la qaato luuqadii bara kartaa wax kasta bara kartaa waxa baranaysaa maxay ahaytoon wax walba oo rabtaa bara kartaa maanta adduunka wuu ka gudbay in inta la baxo jaamacad la fariisto ay qasab tahay inaad degree waaweyn soo qaadato 4 sano 3 sano ugu yaraan meel fadhido waa ka baxay adduunka shortcut courses jiro oo qualification oo national recognized oo wadanka laga aqoonsan yahay ku helayso please and please iscaawiya sutura maanta oo dhan dhaqan soo jireena ma eedayn karno we are tired waa daalnay haddii hooyo ayeeyaday iyo awoowahay markay isqabsadaan mar walbaba ay reerku u hiilin jireen awoowahay oo ayeeyaday laga xaglin jiray oo hooyaday iyo aabbahay markay isqabsadaan hooyaday laga xaglin jiro aabbahay loo hiilin jiray anigu Soomaalida noocaasa ma aha ninkeyga iyo anigu markaa isqabsan inaan hiil ka sugo ii hiilin maayaan waa ogahay waa inaan marka runta yaqiinsano waa inaan yaqiinsano marka intaan maanta ooyin leemaan lagu jiraa aniga kaliya ha soo ooyin inta ilmahaagu yaryar yihiin ma soo ooyin aniga inta ilmahaagu yaryar yihiin MVQ alayra Suuso Ahmed thank you very much ya vocational courses jira waxa jira national fiiri wadankan fiiri sharcigi waxa laga dhigay educationka canuga markuu dugsi sare ka baxo halka jaamacad toos uga aadi jiray waxa la sameeyay levelki iyo evelba way jireen iyo bataagii ayaa waxa loo sameeyay in ay iyaki naftirkoodii oo qofka uu diploma oo qualification oo wadanka aqoonsan yahay inuu kala baxo iskoolka حتى قصب معها المها ودن كان جوجا إن كل بحال إن محيطون جامعة دقلان قصب معها واحد عنو وحوكا بحكرا كلش وحوكا بحكرا شهادة الأخوين سنها هذه أنا ساسو كلاتاي لو ما ده you came from Somalia you came from محيطون ودن إسنعيبات كتبت وحبها بران لو ما ده وحال لو ده أوكي ودن كان وح مكبران ما هنو ها access course سماه وش سماه يعني access course لا بس أنا صار له في access course لا بس أنا صار له في access course كورس أو أكل قبل سنة يسوع ودن كار السيستم كيسو حبرشة توا لا بس أنا وليبة حلي كان سانو أوي هاي مرنا سانو أوي هاي لا بس أنا صار له
I don't think umalayn maayo inaa iga hoostihiin idinka ma umalaynayo naaganimada aniga igu jirto mid ka hoosena idinku jirto ma umalaynayo laakiin waxaa idinka maqan encouragement weliba aniga hadda maanta waa idinla hadlooyaayo gabdho kaloo fara badanaa hadla gabdho badan oo soomaalida maanta social media ku jira oo gabdhaha iyo horumarkooda si sax uga hadla si saxa hadda ka hadlaya uga hadla aniga wax markaas hadla xataa maanan hayso social media ma jiro xataa google ma jirin facebook iska dhaaf google xataa ma jiraan markaan dhibaataysna waxaa ogaanaysaan dhaqan isbedel ma ku samay karno gabdho ani horta runa idin sheega I gave up wallaahi inaan dhaqan isbedel ku sameeyo waa iska daaya aniga my own way iska samaystay qoyskayga my own way wada aniga iyo gaar ahaan ku maamusha ilmahayga wada aniga iyo gaar ahaan ku maamusha wiilkayga gabadha soo arooso wada aniga iyo gaar ahaan ku maamula kula dhaqma waa iska dhaafay dhaqankii xataa dhaqankii saddex Soomaaliyeed xataa wallaahi ma lihi baan idin ma sheegayo mana raba inaan yeesho because saddex oo qayr laga sheegayo maba qabin ba anka Soomaaliya habar walba cunugeeda wiilkayga gabarto soo arooso ku taagnaa jirta waxaas aniga ma raba inaan noqdo ya please and please wallahi wax ka fiican male waxa kaaga daran feelinka wanaaga sabrowd u dareemaysid marka wax barasho ku noqoto wax barashada marka ku noqoto adoo qof weyn oo ilmo koriska soo dhacay oo ilmo xaarka tirida soo dhameeyay oo maxay ahaatona ooyintii diifka isku dari jirto meel iska soo dhigay marka wax barashada ku noqoto niyada say kuugu dhismayso sabrowd u dareemaysid you cannot imagine nin un waxbarashada sideedii oo kale ku noqday baa ogaan kara wallaahi oo billaahi tallaahi ilaahay wajigiisa aad kugu dhaartay waxa aad dareemaysid hadaa aragtid ma maray karaysid gabdho shaqaysta hadda arrintii work from home adduunkii la bartay adduunka dhan hadda waliba inta yareedoo hirtayna gurigee ku aruuray asoo guriga kasoo shaqeeyo hayaan coronavirus dadka wax baray kasii horna wixii waa baray teknolojiyada casriga ka faa'iideysta telefoonka internet kale oo maanta dhan aad xanta ku dhaxaysiin ka faa'iideysta internetkaasaa lacag idin dhalaayo kaad lacagta aad ku bixinaysiin ayaa lacag idin noqonayo waxbarta war cake decorations hadaa baratid sida cake loo decorate garaya hadaa baratid business women aa noqonee ma u baahnid xataa inaad dukaan furtid gurigaaga inta kayga ku samayso oo social mediahaaga isticmaasho oo marketingka social mediahaaga iyo suuqgeynta ku suubsato aa lagaa gadanaa markaasaa xafladaha iyo adduunka oo dhan lagaa dalbanaa war sambuustiista inay samayso taqaanay sambuuskaaga samayso ee ku faafso maxay ahatoona marketingka ku samayso anaa ballan idinkaga qaada inaan marketingka idin baro sida marketing loogu sameeyo xataa haddaa rabto in laydinku tababaro anaa idin baraayo laakiin dad meel iska soo baxay ha ku dhuminina energy dhaqan 100 qarni jiray inaan hadda bedelno ma bedeli karno we cannot ma bedeli karno laakiin you know maxaa samay karna waxbaa bara karnaa caruurteena horumarsan karnaa ilmaha markay waaweynaadaan korka ogaasho u baahan yihiin xilliga hadda caruurtu markay kuu koraan gacanta ka qabay iskoolka gay uma baahna korka inaa kala socoto u baahan yahay ilaa weli hooyaa tahay ogow oo haddana aabbaa tahay ogow oo kaligaa haddaa caruurta korsata labadaad isku tahay ogow oo awooway ayeeye waddankaani waddamada qurbaha ma joogaane ogow awoowada iyo ayeeyihiina adaa adeerka iyo eedadina adaa abtiga iyo habaryartina adaa the whole Somali community completely whole Somali community is just you adi kaligaa waa adaa lagaa rabaa marka sida farabadanahay maalato octopus inaad farabadana inaad noqoto adaa lagaa rabaa ya in wax la isku sheegaa maxamo experience aan ka hadlaynaa iska hadloo mahayno theory maaha waxaan wax buug laga akhriya maaha experience aan laga hadlaa khibradan ka hadloo haynaa gabdhaha kale iyagana ilmaha korsada ilmahooda waxaa u noqdeen khibrada leh idinkuna khibradiina dadka kala hadlaa you don't need inaad diinta islaamka turto believe me xilli waxaan soo maray salaada haddaa xirto markii aan dhibanaa inta ragcoon dukada ma aqaan asa sujuudu sahwi kuwaas salaad walba sujuud sahwi aan raacina illa ragcadayaaba isaga kay daranta shaydaanka madaxayga ka qiiqaaya oo intii madaxayga ka socod saligan ku istaaga illa intii ay ka socoto waa soo maray waxa soo dhaw soo maray
naagaan saas u ooyin ilma ma korsan believe me octopus mamas na noqono waay farabadnaha badda ku jira maarata meeqa faradoo lee ma badno kaas camal hooyo oo faraheeda saas yihiin oo kale inaan noqono waay midna cunuga ku ogow midna korka kaga soco midna maxay ahayd tona cunadooda kaga fakar midna shoppingka uga soo suubi midna adiga wax ku bara midna isku qurxi midna salaada ku duko 112 qalbi ilaa yaalto waa ku qasban tahay yaa isu dhigaysa bal qofka aad isu dhigayso muxuu yahay haddii dhaqankiiba yahay dumarka ha loo daraado raggana ha loo roonaado adiga yaa isu dhigaysa caraduna ogow wax badanay helaysaa caradu xeraday kaa saaraysaa xero inaad ka baxdo qasab ma aha adaan xerada ka bixino xerada gudaheeda ku jiro haddana ilmahaa korsane waxbaa barane priority kala samayso muhiimad u kala samayso nolosha muhiimad qofka u kala samayso noloshaada noloshu muhiimaday leedahay maxaa koo muhiima naftaada inaad badbaado oodan boholaha iska tuurin oodan isdilin suicidal inaadan noqon haddaad noqotana aadan overdose samaynin adig aadan kaw iska siinin ilmihii yaryaraana si aanay kaaga qaadan dowladda iyo dadka kaleeto oo maaragtay ay muteen oo ay ilmahaaga ee gacashata ilaahay kaa beera ee hilibkaaga ahaa ee 100 jeer aad kaga xaq badan tahay cid kasta oo kale oo kula dhashay inaad korsato maxaa yeelay naftaada haddaadan ka fakerin ilma waxay ma u tarayso believe me isbedel haddaa rabta inaad samayso kow naftaada inaad ka bilowdid waay naftaada markaa isbedel ku samayso kabacdiyaa wax kasteeta isbedel ku samay kartaa noloshaada wax ka qaban kartaa ilmahaaga horumari kartaa laakiin waa kow number 1 waa naftaada number 2 waa ilmahaaga number 3 waa adiga horumarkaaga iyo ilmahaaga horumarkooda saas waxa u kala horeeyaan haw ciil qabin qaraabo soo ma salaaman ilaahu qaraabo ma soo salaami jirin baan idin sheegma tabarbuu ma haaye ina aniga naftayda biriijada iska tuura ka ilaaliyo inaan salaada ilaahay dukada inaan isku ilaaliyo waqtigu iga tagin inaan ilmahayga korsado inaan ilmuhu ay maarata daraag diloriskay balaayada iga raacin halahaas inaan isku ilaaliyo ninkii xaragoonaya oo kalba baabuur isku bedelaayana oo waqtayda maraayo oo ila dhalay sida inaan anigu dhalay ama garacyo aan banaanka ka keensaday ay yihiin ma aniga qaraabo salaam ku dari ma kara cid kaaga xumaatana isoo nabad aha u dheh wallaahi priority nolosha leedahay nolosha priority-gooda siiya gabdhaha reeraha le idinka reerihiin allah idiin adkeeyo bad waxaan ka hadlayaa aniga kuwa unfortunate-ka oo nasiib darradu ku dhacday oo ay ilmahoodana wax la korinaayo lahayn kuwaasaan ka hadlayaa kow naftaada takeer garaynaysaa haddaad 2 darbi aheed naftaada caataynaysaa si self esteemkaaga oo kor u kaco diet fiicana samaynaysaa qasab ma aha product oo lacag ka soo bixisid inaad soo gadatid qasab ma aha laakiin dietka cuntada caadiga ah xataa haddaad dietkooda barato intaa ka barahay Google Mr Google is everything you know dietka fiican xataa waa ka baran kartaa Google ka dhaxiisa adaan xataa product lacag ka bixin take care yourself nafsadaada ka taxadar nafsadaada waxbaro wallaahi maalin dhaweeto like 3 courses aan gatay 3 course waxaan ku gatay midkiiba 19 pound aan ku gatay kabaran can you imagine 19 pound bas aan ku gatay 3 course aan gatay oo waxyaabaha aniga u baahnaa oo inaan barta oo sii korsada rabaa waxbarasho lagama weynaado who said waa weyn tahay yaa ku dhex duqaatahay ma laga weynaado waxbarasho because wixii dhan hadda way wada jabiyeen coronavirus dhacay dadkii dhan guryaha kuwa 4 bilood 5 bilood guryaha ku xabisnaayeen xataa dad koorsooyinka bixinaayo kolleejooyinka iyo hay'adaha courseska bixiyo way soo jabiyeen courses bara personal development courses ajir naftaada sida loo horumariyo bara ingiriisi haddaad rabtid inaad baratid bara wax kaa rabtid bara dumarka sida loo qurxiyaa jeceshahay baro iyada naftirkeeda waa la bartaa timaha sida loo suubiyaa jeceshahay baro haddii aadan lacagta awoodin idoo firiihaad ka helaysaa sida hore oo fiicneed bay isugu kaa xirnaan yay macnaha kuu habaysnaan laakiin idoo firiiha waxaa ka helaysaa maxay toona youtube-ka intaad xan ayaa jaqjaqhay laheed iyo waa la yiri wax la yiri xaa qusay wixii la raba hala dhehe ya wax baro
naftaada waxay iskuma dayi karno waa ani been idin ma sheegaayo ani bas maraa jirta aniyada iiga jirta dhaqankan bas ama la bedeli karaa dhaqankan dumarka ka xaqlinaya dhaqankan gabdhaha liidaya dhaqankan gabdhaha hoos u dhigaya ma la bedeli karaa hadda waa iska dhaafay laakiin I gave up waxa ogaada dhaqan inaan la bedeli karin ninkii adaa isqabsaysiin ninkaa saxan xaad isku qabsateen ba lagu dheemaa waa heshiiweysay waa kala tagteen mid isugu lama furoobahay qofka la furayo adiga waahay diintiyaaba saas tiri dhaqankiina waa usii kaalmeeyay ha naagta xmeedoo lasoo furay ilmo yaryaroo la koraayo eedda iyo ma arkaanay adigu ilmo yaroo la koraayo habaryarya abtiyaan aragnaa annaga aan aragnaa saasaa keentay in habaryarya abtile ay ilmaha yeeshaan cunug yaroo la koraayo ninka mugow fura adeerkana ugu dambayso isuguna markaasuu furaa habarta bal maasaa qabay xoo u furaa